السلام عليكم soo dhawaada. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله. Waxaan sugaynaa dadka kale soo galaya insha Allah. Waxaan toos u bilaabi doonaa classkeena. ودونا Soo dhawaada insha Allah. Caawa waxaan rajeynaa qof walbo inuu og yahay topic wuxuu ku saabsan yahay. ها سفيعة Ma jiraa qof aan ogeyn topic wuxuu ku saabsan yahay intaanan guda galin? مؤمنون ما Okay, caawa topiceena waxaa ka hadli doonaa. Caawa waxaa ka hadli doonaa. مؤمن مع الله. Okay, caawa programka wuxuu ku saabsan yahay job search skills and CV writing. Yani qaabkee shaqo loo raadiyaa waqtigan casriga ah joogno. Sidee CV-gaaga yani oo noqon karaa mid amazing ah marka oo maxaa la dhahaa meesha aad ka shaqeynaysid ama shaqada aartina shaqada ku cusubtid aa u geysid yani wax cajab ah inuu la noqdo. Marka waxaan baran doonaa in yani CV-gaaga adi aa qoran kartid inkastoo topic aad u ballaaran yahay waxaan ku fargarayn doonaa wax uu ilaahay naga awoodsiiyo. Hadda إن شاء الله. waxaa idinka xiri doonaa codka qofkii su-aal qabo insha Allah gacantu taagan doonaa haddii aadan wax fahmin inta yani class uu socdo waxaa samayn kartaa gacanta taagi kartaa waxaa laga yaabaa codkaaga inaa xiro. hadda ma jiraa qof aa imaqleen dadaa dhahayo cod ma jiro. أنا haddaa imaqleenin textiga soo qor xalaa kuu raadinayna insha Allah. هو عادي ما في مقلة أول ما تكون مقلة. ha okay ما في مقلة يا أخي مقلة. okay hadda screenka share gareena codkana waa idinka xiri doonaa. soo dhawaada waa habeenkiina labaad yani aan kaga hadlayna programkii meet upka ama kulanka dhalinyarada oo aan kaga caawinayna dhalinyarada inay xirfado ku yeeshaan. xalay waxaa kasoo hadalnay mawduucyo aad u muhiim ah. caawa sidoo kale waxaa baran doonaa dhammaan dhalinyarada qaar waxaa laga yaabaa inay jaamacado ka qalin jebinayaan secondary ay kasoo qalin jebinayaan sidaa darteed ay u baahan yihiin inay fahmaan yani qaabka shaqa loo raadiyaa maxaa la dunida casriga ee maanta tiknolojiyada noqotay. saa ujeedin waxbarashada hadda waxay noqotay live saas camal ama maxaa la dhahaa online saas camal shaqooyinkeena waxay noqdeen online. marka waxaa u baahan tahay in aad fahantid qaabka online-ka shaqo loogu baaro intee shaqo laga raadiyaa ugu horeyn yani inta aadan shaqo raadiska bilaabin waxaa u baahan tahay in aad isu diyaarisid maxaa la dhahaa shaqo raadintaada. okay marka topica aad u ballaaran yahay waxaa isku dayi doonaa in yani waxa aan ka gaarno aan ka kofar gareeno. ugu horeyn waxaa muhiim ah inta aadan shaqo raadiska bilaabin in yani shaqada xitaa aad isku diyaarisid. se isugu diyaarinaya marka shaqada marka waxaa isugu diyaarinaya in aad diyaarsatid wax walbo ay shaqadaas u baahan tahay. waxaa kamid ah CV-gaagii sometimes waxaa u baahan doontaa internet haddaadan internet haysan waxaa u baahan tahay in yani internet heshid si aad shaqada u xiraysid. waxaa kaloo u baahan tahay application letter haddii lagu weydiyo waxyaabaas dhan gadaal aa ka fahmi doonaa. hadda waxaan baran doonaa basiga. okay shaqada inta isku diyaarin dadaa hadlaaya waxaa u baahan tahay organize inaa noqoto. get organize maxaa laga wadaa yani waxaa laga wadaa in yani aa haysatid wax walbo ay shaqadaas u baahan tahay. okay markaa isdiyaarisid yani waxyaabaha kale oo muhiimka waxaa kamid ah identify what you have to offer. waxaa tahay qof shaqadoon ah
company-gan ama shirkadda aa u baahan tahay inaad shaqada ku cusatid يعني waxbay kaa filaysaa waxay is leedahay qofkan markaa shaqaalaysiidin shirkadiina ama hay-adiina waxbuu kusoo kordhin doonaa marka waxaa lagaa rabaa inaad taqaanid what you have to offer ugu horeyn yani intaa shaqa raadinta aa bilaabin ama cv qorista aa baran waxaa lagaa rabaa inaad baratid yani maxaa dadka siin kartaa ama shirkadan shaqada aad ka codsanaysid maxaa u offer garayn kartaa maxaa skill oo leedahay maxaa experience oo leedahay in aad taqaanida lagaa rabaa وانا مهم يعني إنا analyze اسكو سميس ugu horeen ina isbaratid adiga ina ogaatid waxyaaba aad ku fiican tahay ina ogaatid ina ogaatid skillska aad leedahay ina ogaatid xirfadaha aad leedahay marka waxaas dhan waa arki doonaa xirfadaha iyo waxyaaba ay u kala baxaan okay next slide aadina okay waxa marka shaqada markaa raadinaysid waxaa u baahan tahay inaad ogaatid laba nooc oo skills inay jiraan skillska waxaa loo kala qaadaa laba nooc mid waxaa la dhahaa work specific skills iyo employability skills work specific skillska waxaa la dhahaa yani xirfad u gaar ah hal shaqo oo keliya iyo waxaa kaloo jiro employability skills yani xirfad ay u baahan tahay shaqo walbo qofka in laga helo marka labada xirfad waa arki doonaa marka shaqada raadinaysid waxaa u baahan tahay inaad iska controlshid inaad haysato laba nooc oo xirfad ah xirfadda kood waxaa la dhahaa work specific skills iyo employability skills marka waxaa arki doonaa work specific skills maxaa la dhahaa waxaa la dhahaa waa technical skills that you use to do a particular job yani waxaa ku qaban kartaa work specific skills waa xirfad hal shaqo u gaara keliya bas laba shaqo ma ku qaban kartid hal shaqo ku qaban kartaa work specific skills ka daartid sample waa arki doonaa tusaale waxaa ka mid ah yani qofka inuu yaqaano sida matoorka gaariga loo furfuro bas matoor gaariga loo furfuro haddaad taqaanid yani ma dhihi kartid maxaa la dhahaa bangiga ka shaqayn karaa shaqadaas waxaa la dhahaa xirfadaas noocaas waxaa la dhahaa work specific skills waxaa rajeynaa inaad fahanteen work specific skills marka shaqada la taagan yahay waxa muhiimka ah waxa waaye employability skills yani employability skills waxa waaye waa xirfad shaqo walba ee u baahan tahay marka waxaa lagaa rabaa in yani hormarisid employability skillskaaga employability skillska marka waxyaabaha ka mid ah waa arki doonaa laakiin marka shaqada la joogo waxaa muhiimka ah maxaa la dhahaa employability skills okay tusaale hadda example of work specific skillska halkaas aad ujeediin repair auto bodies yani qofkan wuxuu yaqaanaa sida matoorka iyo waxyaabahaas loo dayactiro bas waa yani shaqo u gaar ah maxaa la dhahaa hal maxaa la dhahaa waa xirfad u gaar ah hal shaqo keliya ma ahin yani shaqo dhowr yani ama hay-ada kala duwan hay-ad finance ya hay-ad HR ah ugu shaqayn kartid maaha shaqooyinka noocan waxaa la dhahaa waa work specific skills marka in aad isbaratid adiga waa ku muhiim yani inaad baratid employability skillskaaga iyo work specific skillska aad leedahay marka waxaa kaloo jiro waxaa la dhahaayo employability skills employability skills waxaa la dhahaa are more general skills that can help you success in the most work situations saa idin sheegay employability skills waxa waa yani waa xirfadda shaqo walba ay u baahan tahay waxaa ka mid ah communication skills working with numbers solving problems be responsible work safely waxyaabahaas yani waa shaqo walba way u baahan tahay haddii mechanic aad tahay waa u baahan tahay haddii yani diyaarad aad duulinays xirfadda noocaas waa u baahan tahay haddii maxaa la dhahaa beer aad falaysid xirfadda noocaas waa u baahan tahay haddii maxaa la dhahaa maxaa la dhahaa dhismaha ku jirto waa u baahan tahay employability skills waxa waaye xirfad yani shaqo walba ay u baahan tahay waxaa ka mid ah marka communicate others yani inaad tahay qof oo dad kala duwan tusaale luuqado kala duwan ku hadli karo ama dad kala nooc oo background kala duwan leh yani communication ku samayn karo work with numbers inaa xisaabaadka ku fiican tahay solving problems yani dhibaatooyinka iyo problemska inaa xal u heli kartid be responsible qof yani mas-uul inaad tahay work safely
يعني inaa u shaqayn kartid yani qof oo si taxadir leh u shaqayn kara inaad tahay waxyaabahaas dhan waa muhiim marka waxaan rajayn doonaa inaad fahanteen xirfadaha ay shaqada u baahan tahay laba nooca loo kala qaadaa mid waxaa la dhahaa employability skills midna waxaa la dhahaa technical skills marka waxaa idin siin doonaa haddii aadan fahmin haddii aad su-aal ka qabtaan insha allah su-aalihiina waa ka jawaabeynaa qofka su-aal qabo gacantaa soo taago insha allah waxaa siin doonaa su-aalihiina okay yaa su-aal qabo oo weli aa fahmin qaybtan fadlan haddaadan fahmin nala soo wadaag qaybtan yaanan fahmin qofka aa fahmin gacanta soo taag insha allah yes okay waxaa gacanta soo taagay zakariye sada wax yar taraabeen wax yar ku celi iyada kalta waxaa u baahnaan lahaa haddii aad naga caawin kartaan inaad pdf ahaan noogu soo dirtaan insha allah pdf waa la siinaa zakariye waa lagu celin doonaa meesha aadan fahmin waxaa kaloo gacanta soo taagtay cabdirasaaq cabdullaahi cabdirasaaq su-aal maa qabtaa okay waa kasii socon doonaa qofka aan fahmin insha allah dib aa loogu sharxi doonaa xogaa yar ma fahmino gadaalaan kasoo gale okay gadaal qofka soo galay ma loo joojinaa insha allah dadka kale oo la socda programka usii wadeena meesha aad joogtid kala sii qabso insha allah okay saa ujeedin marka employability skillska waxaa idin sheegay inay aad muhiim u tahay marka shaqo la joogo waxaa ka mid ah cooperating with others yani in dadka kale يعني على شقين كرتيد اسعاوين كرتين هذه adoo Soomaaliya joogo Mareykanka lagu geeyay ama wadan kale lagu geeyay dadkaas in la shaqeysan kartid marka waxaabas waxay ka mid yihiin employability skillska waana xirfada ay shaqada u baahan tahay okay marka shaqo raadinaysid waxyaabaha kale oo muhiimka waxa ka mid ah accomplishments yani accomplishments waxa la dhahaa employers will be even more impressed by your skills if you describe the positive result that you have achieved يعني dad shaqaaleysiinaya shirkadaha waxay aad yani ula cajabayaan hadii maxaa la u sheegtay xirfadaha aad leedahay yani si positive ama guulaha aad soo gaartay tusaale waxaa ka qayb galay international youth forum anoo matalay dhalinyarada Soomaaliyeed yani company u shaqeynayay profitkiisa waxaa kor u qaaday maxaa la dhahaa boqolkiiba 30 boqolkiiba 40 maxaa la dhahaa marketing waxa ahay marketing role yani waxaa gaarnay maxaa la boqolkiiba intaas inaad dhihi kartid accomplishmentigaaga ama guulaha aad gaartay in marka CV aad qoraysid aad ay muhiim u tahay accomplishmentigan wuxuu ka anfici doonaa marka aad qoraysid resume-kaaga accomplishmentiga marka waxyaabaha waxaa ka mid ah marka goals you have met or exceeded يعني tusaale hadaf aad degsatay waxaan dhahday 2020 marka la gaaro waxaan rabaa in yani aan financial independent aan noqdo ama yani waxaan rabaa in aan shaqo abuurto ama wax aan gaaro goal aan gaaro waxay ka mid tahay maxaa la dhahaa accomplishmentska guulaha aad gaartay tusaale tight deadlines you have met accomplishment markaa qoraysid CV-gan waa lagu qoraa waxaa ku dari kartaa tight deadlines you have met tusaale shaqo qabanaysay shaqada yani waqtigeeda aad u cariiri ahaa oo ku koobnaa shaqadana aad u balaaneed waqtigii loogu talagalay ku dhameysay waxyaabahaas waxay ka mid tahay accomplishments sidoo kale waxaa jira wax la dhahay leadership roles that you have been asked to take on haddii yani door hogaamineed jaamacadaada iskuulkaaga bulshadaada dhexdeeda aad kasoo qabatay waxay ka mid tahay accomplishments sidoo kale waxaa jiro times you have taken on more responsibility than you had to haddii xitaa gurigaaga yani responsibility weyn aad ka qabatay ama mas-uuliyad aad kasoo qabatay ayada xitaa waxay ka mid tahay accomplishments haddii ay jiraan maxaa la dhahaa activities or events you have organized bulshada dhexdeeda hadday jiraan activity-yo ama event-yo soo abaabushay hadday jiraan waxay ka mid tahay maxaa la dhahaa waa accomplishment guula aa gaartay sidoo kale hadday jiraan training award waxyaaba noocaas aa heshay
waxay ka mid tahay accomplishments waxayna ka mid tahay qofka waxyaabaha aadka loogu taxgeliyo marka uu shaqadoonka yahay. Marka shaqada markaa raadinaysid sidoo kale waxyaabaha kale ee muhiimka ah aad ka fiirinaysid waxay tahay identify your needs and wants. ugu horreyn waxaa idin soo sheegay yani shaqada markaa raadinaysid inaa ogaatid shirkadan ama kambanigan aad rabtid inaad ka shaqaysid maxaa siin kartaa, maxaa yani oo kambanigooda aad kusoo kordhin kartaa. tusaale maanta kasoo qaad hormuud camal artaa inaad u shaqaysid. hormuud waa shirkad aad u weyn oo yani gudaha soomaaliya aad ugu weyn. maxaa ku kordhin kartaa yani booskay maanta taagan tahay maxaa kaga sii dari kartaa. yani marka aad kusoo biiraysid dadkaas waxaa lagaa rabaa inaa role ama position aad qabatid oo door aa ciyaartid. marka waxaa muhiim ah inaad taqaanid maxaa la dhahaa wax aad ku dari kartid. saasoo kale waxaa jiro shirkadan adi shaqada aad u raadsanaysid waxaa kartaa waxaa ugu baahan tahay inaad ogaatid needs and wantskaaga. shaqo walba markaa raadinaysid yani waxyaabaa waxaa caddeysaa ama aad qorataa needs and wantskaaga. hadhow haddii kale waxaa jiro job security waxa la dhaho ama yani dad badanaa waxaa jiro shirkada ka shaqeeyaan ama hay-ada u shaqeeyaan ama kambaniga u shaqeeyaan bes kuma qanacsana shaqada ay qabanayaan. muhiimadooda waxay tahay mushaarka meesha ay ka helayaan. marka sababta needs and wantska aa u fiirinaysid waxay tahay in yani maxaa la dhahaa hadhow yani meesha aad ka shaqeynaysid 50-50 ama yani 50% inaa niyad u haysid 50% na aan neceb u haysid waa laga fiican yahay. marka ugu horreynba waxaa raadisaa laakiin anaga soomaaliya markaa joogno there is no option waay wax option la dhahayo ma jiro. ilaahu shaqo iyo sahlay taagan tahay maxaa ma jirto needs and wants. laakiin mar walba muhiim shaqada inaad ka fiirisid needs and wants yani waxyaaba waxaa jiro adi aad ka tegi kartid iyo waxyaaba aadan ka tegi karin. marka shaqada waxaa u baahan tahay inaa needskaaga iyo wantskaaga aad ku fiirsid. alo waa idin soo laabanaa hal mar wax yar insha allah.
السلام عليكم رالي نقطة xoogaa call baa isoo galay dad qaar aada shaashada noogu ciyaarayo waana ceeb maxaa la dhahaa classka wax ku baranaysid in aa fooda ka dhigtiin dadka qaar aa shaashada ku ciyaarayo fadlan maxaa la dhahaa screenka waxa kusoo qorin waxaan sii guda galaynaa cashirkeenii waxaan ka hadalnay waxaa la dhahay yani inaa marka shaqadoonka aad tahay shaqada inaa ufiirisid needs and wantskaaga needs and wantska maxaa laga wadaa yani waxyaaba qaar waxaa jiro shaqada marka la joogo muhiimay ku yihiin waxyaaba qaarna waxyaaba aad ka tegi kartaa kamid ah tusaale markaa artid yani in shaqo dooratid waxyaabaha ka fiirinaysa waxaa kamid ah time commitment yani shaqadan waqtiga ay u baahan tahay muxaarta shaqo oo full time ah muxaarta shaqo part time ah waxyaabaas waxay kamid tahay waxyaabaha aad ka fiirinaysid shaqada sidoo kale waxaa jiro locationka shaqooyinka qaar waxaa laga yaabaa in ay ku yaalaan meelo kaa fog fog inaad ka fiirisid shaqooyinka qaar waxaa laga yaabaa locationka waa muhiim tusaale adoo degan yani kasoo qaad muqdisho camal aad degan tahay haddii lagu dhaho shaqo loo aadayo intaan dhahnaa balcad camal oo subaxii inaa gaari u raacdid habeenkii aad kasoo laabatid shaqo noocaas inaa shaqooyinka u fiirisid locationkan waa muhiim yani markaa shaqada needs and wantska waxyaabaha ka fiirinaysid haddii aa awoodid inaa meeshaas safar ku aadid haddana habeenkii aad kasoo laabatid oo aad ku shaqeyn kartid qaab noocaas nafno waxyaaba sidoo kale waxyaabaha kale aad ka fiirinayso waxaa waaye job security how it's important to have a job you know it's secure for long time waxyaaba kale yani job security-gan aad uu muhiim yahay shaqadan meeqa sanaa sii joogi kartaa dada nagu soo biiray oo codka u furan yahay fadlan markaa soo geshid meelaha buuqa ka fogow marka waxaa kasoo baxnay waxyaabii basic ahaa marka waxaa rabnaa inaa ogaano looking of qaabkee shaqa loo raadiyaa marka intee shaqa laga raadiyaa hadda waxaa joognaa maxaa la dhahaa technology era waqtigii technologiyada wax walbo maanta waxay noqdeen maxaa la dhahaa technology maanta intay shaqa ka raadin kartaa social networking siteska hadda tusaale facebook waxaa ka raadin kartaa haddii aad soo geshid oo halkan aad ku dhufatid maxaa la dhahaa tusaale kasoo qaad facebookaaga haddii aad tagtid waxaa ogaan kartaa shaqooyinka areada aad joogtid ka banaan tusaale waxaa ku dhufanaysaa qaybtan hoose facebook saa markaa u joogtid waxaa ku dhufataa see more see more markaa ku dhufatid waxaa arkaysaa meeshaas ay ku qoran tahay jobs meeshaas ay ku qoran tahay jobs ku dhufo saa ujeediin halkan waxaa ku qoran jobs waxaa ogaan kartaa marka areada aad joogtid waddan kale haddaad joogtid shaqooyinka banaan yani shaqooyinka markaas areadaas ka furan waa idin tusi doonaa maxaa la dhahaa social media qaababka shaqaa ugu raadin kartid ha inoo soo kaco insha allah okay hadda saa ujeediin meeshaan
badanaa anaga maxaa la dhahaa Soomaali markaana wax walbo yani ciyaar dadaa waxay iska soo geliyaan shaqooyin booja ah hadda saa ujeedid shirkaddan la dhahaayo Modern Aluminium Workshop waxay soo gelisay shaqo ah marketing assistant maxaa la dhahaa Constellis ayagana waxay soo geliyaan project manager kan iska booja waa horumarinta nolosha camal defense minister of Somalia ayagana waxbay soo geliyeen marka qaabkaas shaqo lagu raadiyaa laakiin hadda tusaale Soomaaliya joognaa wadan kale aan fiirino meeshaasaa change ka dhehe change markaa dhahdid waxaa gelinaysaa locationka ama wadanka aad joogtid hadda Soomaaliya waa noo soo qabanaa sababtoo ah Facebook wuxuu tracking ku sameynaa locationkaaga okay hadda waxaa fiirinaynaa Bangalore India magaalo ka mid ah marka dadkan ma ku ciyaaraan maxaa la dhahaa social media shaqooyin saxana la soo geliyaa saa ujeedin hadda cash on big business development executive digital marketing executive marka social media waa yani maxaa la dhahaa platform aad shaqooyinka ka baari kartid waxaa muhiima marka yani tusaale waxyaabaha kale oo muhiimka ah waxaa kamid ah inaad profilekaaga dhistid si يعني social media shaqo ugu raadsid waxa ku muhiim ah profilekaaga inaad dhistid yani profilekaaga maxaa ku qortaa kaliya ha ku qorin yani maxaa la dhahaa meesha ka imaatay waxaa qabatay maxaa la dhahaa magaalada joogtid soo kale waxaa laga rabaa yani profilekaaga inuu dhisnaado oo ka turjumo experience-gaaga tusaale saan camal yani meelaha kasoo shaqeysay waxyaabaha soo qabatay in profilekaaga uu qaab noocaas uga turjumo aad ayay muhiim u tahay marka social media waxaa rajeynaa inaad fahantay maxaa la dhahaa in uu yahay platform shaqooyinka lagu soo bandhigo soo kale inaa maxaa la dhahaa haddii qaabka offline-ka ama traditional methodka waxaa waaye dadka badanaa Soomaalida wax ma akhriyaan jaraa'idka zooba agtiisa lagu gado shaqooyin badan ha lagu soo bandhigaa marka haddii shaqadoon aad tahay oo area zoobi markaa maraysid ama magaalada gudaheeda haddii aragtid qof jaraa'id wado waxaa dhahdaa jaraa'id ay shaqo qoran tahay si marka akhri maxaa la dhahaa meelaha sidoo kale waxaa jiro inaad iska diiwaan gelisid register with private employment or placement agency hadda tusaale Soomaaliya placement waxaa la dhahaa ma ka jiraan jaamacadaha kale hadda India aan markaa joognay yani last year ka markaa tahay maalin walba shirkada imaanayso yani waxaa jiro maxaa la employment agency iyo placement jaamacada waxay keenay company kala duwan maanta interview laga qaadaa CV gudbinay marka jaamacadeen waxyaabaas badanaa ma laha umareyna localka marka waa muhiim yani meelaha shaqooyin ka raadin kartid ko number 1 waxaa kamid ah social media number 2 aalad kale aad u muhiim ah jiro oo Soomaalida aad u isticmaalin aaladan waxaa la dhahaa LinkedIn LinkedIn waxa waaye waa professional network saa ujeedin waxa waa American business and employment oriented waxa waa online service bas waxaa loo sameeyay employment waxaa sugu imaada dadka businesska yani dadka management levelka dadkaas sugu imaada marka inaa LinkedIn profilekaaga aad dhistid si fiican shaqo waa ugu helaysaa insha Allah waxaan rajayn doonaa in yani LinkedIn si fiican u fiirisaan ana u bartaan then profiles fiican ka samaystaan marka waxyaabaha kale oo muhiimka markaa shaqo doon tahay waxaa kamid ah networking waxa waaye is an organized way of asking the people you know for more information about to connect with to connect you with the people they know networking waxa waaye tusaale anaga waxaan u naqaanaa hadda tusaale shaqo raadis aad tahay inaad dhahdid dadka kale saaxiibada ah wacdaniyo shaqo doona ahay magaalada shaqooyin oo banaan ku og tahay asxaabtaada familkaaga markaa wicisid waxyaabahaas waxaa la dhahaa networking marka network markaa samaysanaysa qaabkee loo samaystaa waxyaabaha muhiimka ah networking markaa shaqo doon tahay aaday muhiim u tahay inaad network aad samaysid in yani dad kala duwan aad baratid dadkee baranaya marka tusaale waxaa tahay inaad yani ka shaqaysid nursing camal waxaa baro markaa dadka kala duwan ee magaalada jooga ee nursing ka shaqeeya sababtoo ah waxay og yihiin vacancies ka banaan meelaha waxay ka banaan yihiin waxyaabahaas in waxa ku sheegi karo
يعني network inaad samaystid marka networking aad u muhiim yahay hana ku koobin inta aad taqaanid bes familkaaga saaxiibadaada haddii aad network la samaystid oo dadkaas la isdhahdid intaas NFY ma kugu filno waxaa muhiim ah marka network markaa samaysanaysid dad kale oo ehelkaaga asxaabtaada ka baxsan inaad network la samaysid okay networking meelaha laga bilaabo waxa waaye يعني dadkaas si fiican u taqaanid inaad dhahdid niyo shaqadoona ahay asxaabtiina kale aad taqaanin igu sii xira maxaa dhahaa waxa kamid ah familkaaga kamid ah dadka deriskaaga kamid ah macalinkaagii hore fama teacherska dadkii hore ee wax kusoo baray mentorskaaga haddii mentor leedahay qof yani mentor waxaa la dhahaa qof oo guide ku oo maxaa la ku caawinayo oo guidelines waxyaabahaas ku siinayo ama haddii qof work supervisor hore aaleed waxyaabahaas dhan waa networka laga samaystaa waxaa la dhahaa niyo shaqadoona ahay asxaabtiina kale aad taqaanin igu xira okay next slide ugu gudbayna networking sidoo kale waxyaabaha la samaysan karta inaad la samaysid ee muhiimka tahay waxay tahay social workerska dadka arrimaha bulshada ka shaqeeyo religious dadka macallimiinta dugsi qur-aankii ay iloobin dadkaas muhiim waaye haddii maxaa la dhahaa aada loo tixgeliyaa waa la bartaa ayaga xitaa waxaa la dhahaa shaqadoona ahay sababtoo ah macalinka dugsiga arday badan uu leeyahay mid xildhibaan waaye mid waxa waaye maxaa la dhahaa qoryaa wataa midba intuu ku jiraa marka aadaa loo qiimeynaa macalinka dugsiga network ka samayso marka networking very important waa wuxuu gaarsiinaa finally inaa shaqada rabteed aa heshid okay network waxaa kaloo jiro qaab network online loo samaysto ama yani dadka online-ka as leedahay dadka ma ku caawin karaan inaad la xiriirtid aad dhahdid niyo shaqadoona ahay facebook kala xiriir twitter kala xiriir linkedin kala xiriir instagram kala xiriir adaas leedahay qofkaas shaqo bixiya ama xaj aan waaye waa la xiriiri kartaa waxaa xiriiri kartaa inuu aniga shaqadoona ahay haddii position banaa aragtid ila soo socsi halkaana saaxiib ka noqono marka waa networking oo online-ka okay marka waxyaabaha kale oo aadka muhiim ku ah dadka Soomaalida ay ka tageen waxa waaye contacting employee directly su'aale network soo samaystay waxaa soo baratay dadkii yani maxaa la dhahaa shaqada ka raadsanaysid ama shirkadihii xiriir fiican soo samaysay marka ama dadaa ku dhahay company-gaas shaqo ka banay marka waxyaabaha kale next step waxa waaye contacting direct employee directly ina xafiisyada shirkadaha aa wacdiniho aniga shaqo doona ahay maxaa la dhahaa shirkadiina shaqo ma ka banaan tahay see loo baaraa su'aale waxaa idin tusaa marka qaabka shirkadaha loo ogaado nambaradooda emailskooda su'aale hadda waxaa artaa premium bank in yani shaqo ka raadsid marka okay waxaa artaa premium bank numberkooda iyo informationkooda inaa raadis se u raadine halkaasaa ku dhufanaya waxay leeyihiin emails ay leeyihiin numbers ay leeyihiin marka waxaa ku dhufataa mar walbo markaa shaqo aad ka raadinaysa camal careersaa ku dhufan kartaa laakiin haddii aad rabtid inaa la xiriirtid oo company-ga aa wacdid halkaasaa ku dhufanaya contact us markaa ku dhufatid saa ujeedid nambaradooda waa kuwaan marka inaa qabatid aa wici kartaa aad ahdid kaanta customer service waaye emailskana inaa qaadatid aa u diri kartaa waxaa dhigi kartaa niyo aniga qof saas ahay oo graduate oo degreegaas kasoo qalin jibay experiencegaasa leeyahay shirkadiina shirkad aad u balaaran waa ani aad u jeclahay inaa meelaha ka shaqeeya ka mid ah haddii wax fursadaha ay jiraan inaa ila soo wadaagtiin aad baa u jeclaan lahaa yani qaab noocaas contacting directly employee lah tusaale waxaa kaloo jiro yani tactic yar farsamo kale shirkadaha waxay aad u jecel yihiin la dhahay qofka yani u tago oo weydiiya inay shaqo ka banaan tahay yani waxaa badanaa waxay diidaan tusaale hadda website-kan camal in shaqo waxaa jiro badanaa waa taqaanin somalijobs.net website-kan camal shirkadaha inay shaqo kusoo bandhigaan lacag ku qaata tusaale halkii shaqo ay kusoo bandhigaan $50 $100 lacag ku qaataa marka waxay ka jecel yihiin in yani lacagtaas ay khasaarin lahaayeen qof socdo inuu u tago oo weydiiyo niyahow shirkadiina shaqo ma ka banaan tahay qofka noocaas inuu helaa laga yaabaa marka waxaa kaloo isku daydiin inaa xafiisyada shirkadaha aad booqataan hajariska ama dadka yani u qaabilsan dhanka shaqaaleysiinta inaa u tagtaan oo aad dhahdaan maxaa la dhahaa xafiiskiina shaqo ma ka banaan tahay qof shaqo doona ahay marka waxyaabahaasna waa pointiska aadka muhiimka u ah marka aad shaqo raadis tahay let's back slide-keena u laabana marka
okay markaa artid inaad la xiriirtid ama shirkadaha la xiriirtid dhowr noocaa jiro oo xiriir ula samayn kartid waxaa ka mid ah yani in person yani qofka aa isleedahay HR-ka u qaabilsan yahay shirkadaas inaad toos u wacdid ama aa la kulantid khasaare iyo faa'iido ay leeyihiin maxaa la dhahaa khasaarada iyo faa'iidada waxaa ka mid ah yani waxay jecel yihiin dadkan yani qof more impressive employees who are looking for outgoing people marka yani faa'iido iyo khasaare ay leeyihiin yani person markaa ula kulantid by phone markaa ula kulantid dad badanaa qolka kusoo biiraayo insha allah waa ka aqbalaynaa yani methodiska ula kulmi kartid way kala duwan yihiin methodkood waxaa waaye in person yani inaa shaksi ahaan ula kulantid methodka labaad waxaa waaye by phone kan saddexaad waxaa waaye in yani by email aa u dirtid kan afraad waxaa waaye by mail haddii aa meesha ka fog tahay inaa bashqad usoo dirtid qaababkaas dhan waxa waaye qaababka aa ula samayn kartid xiriirka shirkadaha marka waxaa jira markaa shaqo raadiska aa bilaabaysid waxyaaba kaloo muhiim ah inaad samaystid work search plan and record inaa qorshe aad degsatid tusaale bishaan waxaan rabaa inaa hadaf inaad samaystid aad dhahdid bishaan waxaan rabaa inaa booqdo 10 shirkadood finally waxaan rabaa inaa helo shaqo inaa helo intaa u gudagelin yani sida loo sameeyo work search plan and record waxaan rabaa inaa su-aale dadka ay qabaan aan dhegaysano then next step insha allah waa gudageli doonaa fadlan su-aalihiina soo daaya okay su-aalihiina soo dhawee waa soo dhaweynaynaa qofkii su-aal qabo gacanta ha taagto naadiya nuura su-aal qabto okay naadi soo dhawo su-aashaada Hallo miyo qashin. waa lagu maqlaa Su-aasha qabo waxay tahay hadda loo soo qaad waxaa rabaa hal dugsi sare dhameeyey waxaa rabaa inaan noqdo waaba ahay mihi laakiin waxaa soo bartay inaan dadka baro kale si loo shareeca soo bartay 6 sano high school iyo 1 sano college multiple language ku hadlo kale si Soomaalida iyo kuwa diaspora xagga jirto diinta ku yar tahay oo kale موضوع waxay tahay inaa macalin noqdaa raba oo online sidee ku noqoni karaa sidee ku soo jiidan karaa adoo raali inaa online dad waxaa ku bartid simple waaye maxaa la dhahaa facebooka account-kaaga ka furo then u sheeg dadka yani waxa aad baraysid waa simple step waxaa su-aasha kale gacanta taagayo yaasiin waxaa su-aal siin doonaa yaasiin soo dhawo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة ياسين soo dhawo marka hore laba su-aal aan wataa labadii su-aalna waa bogsiinayaa macalin inaa igaga jawaabto waa rajeynaya insha allah إن شاء الله su-aasha koowaad waxay tahay accomplishment dadka markaa noo sharxaysa kambaniga markaa rabto inaa u tagto waa inaa wax kusoo kordhin kartaa sideen ku arki karaa kambanigani intaanan shaqada ka raadsan ka hor meelaha weaknesska ama baahiyaha oo aan kusoo kordhin karaa horta kow intaan ka arkaya marka a b c markuu idhaho halahan way naga banaan tahay qof nagu soo kordhinaa aniga midka aan isku dayi kara ama aan kasoo bixi karaa ayaan kambaniga diiradda saari karaa kambaniyada localka ee dalka ku yaalin maba lahanba meelay kusoo bandhigaan hadday jiraan inaa macad noo sheegto aanaga raadin waa midda koowaad midda labaadna su-aasheeda labaad waxay tahay ustaadii emailkayga amba emailkan abaaraya anigu meelo badanna ma gelgelin xayiisii badan shaqo canada lagu dhahayaa us france turkey way kusoo bandhigaan gmailkayga markaan galo shaqooyin badan sidee aniga dadkaas ay gmailkayga ku heleen ee shaqooyinka yaalin run iyo beenba sida igu soo bandhigi karaan anoo halkaan joogo waa maasanta waa maasan tahay ustaad yaasiin waxaa dhahday emailka waxaa jira waxaa la dhahay email marketing tusaale adoo facebook dhex maraa waxaa arkaysaa apply canada jobs camal
then yani waxay kaa qaadanayaan personal informationkaaga personal informationka markay kaa qaataan waxaa jiro waxa la dhahay retargeting ama listing ay kugu darsanayaan oo emailkooda ah listigaa markay kugu daraan yani waxay leeyihiin daily schedule oo ah inay dadka market gareeyaan waxay soo qorayaan maxaa la dhahaa contents contact badan ama articles badan ay kugu soo share gareynayaan automatic waxaa kusoo dhacay emailkii daily ama website-kooda markay wax kusoo qoraan waxaas way kusoo gaaraan sababta u sameynayana waxay tahay in yani يعني هذا وحاطة lead يعني وحجره sales funnel واحد له funnel واحد لها سؤال هذا ميلا إذا كنتسو screen كاشر جرانا نسي إذا كنتسو sales funnel كواحد له صابته إيميل كوجو سمعنا أنا بحيث هاي سامبل sales اوكي هذا السوير كان سأوجدين وفانلكي sababta emailska badan ee kugu soo dirayna waxay tahay awareness inay kugu sameeyaan awareness waxa waay inaa ogaatid yani in Canada ay shaqooyin ka jiraan kadibna ay interest kuga abuuraan ay baahi ku geliyaan baahida markay ku geliyaan waxaa gaaraysaa stage kale oo ah decision inaad dhahdid oo shaqadan way anfacaysaa oo apply gareena then yani way ku judge gareynayaan lacag inay ka qaadaan maxaa la dhahaa ay ku dhahaan si meeshaas aad u tagtid lacagtaas bixi muhiimadooda waxay tahay inaad sales aad noqotid ama conversion ay kugu sameeyaan stagekaas inay kaasoo bilaabaan ilaa iyo downkan ay ku geeyaan oo ah lead hadsaan inta markaad joogtid waxaa tahay lead wax la dhaho waxaa ku jirtaa email listingkooda marka aad ku jirtid waxay kuga abuurayaan awareness waxay kusoo dirayaan email badan fariimo badan ay kusoo qorayaan fariimahaas markay kusoo gaaraan waxaa helaysaa interest oo shaqadii aad jeclaanaysaa oo waxaa isdhehaysaa oo programkan aad u muhiim u yahay then decision aad samaynaysaa go-aan aad qaadanaysaa waxaa dhahay aniga waxaan rabaa inaa Canada aado Canada si aad u aadid waxaa waa inaa ayaga dib email ugu dirtid ama aad la hadashid marka aad la hadashidna waxay ku dhahayaan lacagtaas bixi programkan saasa ku heli kartaa lacagta markaad bixisid salisaa tahay marka ujeedada guud emailka ay kugu soo dirayaan waa saas oo waxay rabaan inaad noqotid yani inay ka soo bilaabaan stagekan awareness ilaa iyo action aad ka qaadatid halkaas ay ku gaarsiiyaan marka waxaan rajeynayaa sin inaad fahantay qof kale haddii oo su-aal qabo waa soo dhaweynaynaa يا سؤال خبر اوكي اتو ديري اتو دير سودو الو اتو ديري ان فضلا قعنتها تاغنين هدي يعني هذا ربين محل دها ان اد سؤال ويديسيد waxaa kaloo siin doonaa maxamyare maxamyare soo dhow maxamyare soo bilaab su-aashaada su-aasha waxaa tiri email marketing markii uu sameynaya gmail kusoo dhacdo ilaa waxay keenayaan inay kaa iibiyaan maarata waxay kaa iibinayaan ma waxay ku dhacayaanba ما يعني شركات قار وحواي كوا قارو اسبامين كوا سمينايو iyo kuwa saxan marka kaas waa another topic waxa lagu bartaa digital marketing waxaba sida loo dhiso sales funnel kaas marka caawa programkeena ka hadlayno waxa waay job search skills and CV writing mawduucada ka soo hadalnay waxa daadan ka fahmin waa faahfaahsanaa su'aashu waxa raaciyay okay waxaan siin doonaa qofka kale أحمد نور أحمد نور سؤال سؤال هذا dadka qaar waa gacanta iska taaganayaan fadlan haddaadan hadlaynin gacanta ha taagan waa maasan tahay axmed nuur waxaa sii doonaa bishaaro السلام عليكم استاذ عفوا وخذوا مشغول سنه
aha waa bishaar يا bishaar soo dhow أستاذ وما صنت ودوه هاي أستاذ واحد رأينا مرتضى أنا مثلا براهم شو استعماله إنه عارف يمكن بدنا أي لا اللي هاي شقة أنا بنان يهب لي كبنان هاي ساس واي هذا ساس يري يعني سيدك وكرا برنامج كأنه فيه هاي إنه بين هاي وكرا تاس okay shaqada yani shaqo soomaali ma mise waa waddan kale ما وضع كله okay tusaale you cannot maximize zoom when you are recording tusaale marka mar walba waxaa sameysaa waxaa isku daydaa tusaale company shaqadiisa markaa heshid inaad google gelisid haddii google halkaa aad ku qortid maxaa la dhahaa waxaa jiro shirkado forex oo ku dhahayo waxaasaa bixinaa see ku ogaanaya waxaa jiro shirkada adduunka review bixiyo waxaa ka raadsaa top وسادي waxaa jiri oo reviewga bixiyo yani productska maxaa la dhahaa NGOs wax walbo waxay ka bixiyaan review marka haddii companyga soo qaad google geli waxaa dhahdaa reviewgiisa fiiri baar ogow dadka review ka bixiya halka haddii aad ku qortid jaamacad ka soo qaad haddii aan dhahno Anambra University waxaa ogaanaysaa inay jaamacad jirta tahay adresskeedii waxeedii helaysaa marka jaamacadda inay fiican tahay in kale waxaa ku ogaan kartaa marka dadka review ka soo bixiyay reviewga waxa waa anaga marka caadi Soomaaliya hadda dir aartid dukaan inaad tagtid asxaabtaada weydiinay niyo alaabtaas say tahay laakiin internetka marka wax aad rabtid inaad wax ka ogaatid waxaa jira waxa la dhahay review inaad baartid reviewgooda tusaale halkaan ku dhufanaysaa استاذي سكرينكو كوما شير غرسنا okay ha sorry مرور هنا خبطانات marka su'aal hadda waxaarta ka soo qaad waa laabanayna dib u laabanayna mar walba internetka markaa artid inaad wax ka baartid waxaa la baaraa reviewga dadka ay ka bixiyeen hadda tusaale hormuud markaa artid inaad adeegeeda qaadatid adeeg cusub adeeg keento dadka isticmaala weydiinaya laakiin online wax marka lagu soo bandhigo ma taqaanid marka waxaa jiro hab loo baaro halkaasaa gelinaysaa waxaa dhahaysaa tusaale ka soo qaad jaamacaddaana fiirinayna waxaa la dhahaa Anambra University waddan kale ku taalaa inaa aadid artaa marka inaa se ama adeega qaab noocaana loo soo bandhigay waxaa artaa inaa iska ogaatid halkaasaa tagaysaa waxaa fiirinaysaa marka review ay haysato kana halkaas google reviewga ku dhufane waxaa arkaya marka dadka waxay kasoo dhaheen tusaale qofkan waa kana the one and only university which is the backbone for this locality marka maxaa la dhahaa qaabkaasaa u baaraysaa reviewga dadka waxay ka dhaheen haddii dad la gaado ama yani wax qaldan ku arkay qaab noocan usoo qoraan waxay dhahayaan program fiican maahan iska ilaaliya marka internetka mar walba hool ka qabsanaysid ama wax aad ka iibsanaysid reviewga laga baaraa marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad fahantay yaa kaloo su'aal qabo waxaa siin doonaa su'aalaha kale cashirkaasi guda gali doonaa waxaa siinaynaa Safiya Maxamuud Safiya soo dhow Safiya waxaa u maleynayaa inay ka maqan tahay waxaa gacanta soo taagay Siyaad Safiya soo dhow Hello Safiya waxaa siin doonaa Siyaad soo dhow ها اي سو ويد ان شاء الله marka sidee CV loo diyaariyaa marka sidoo kale sidee ku noqon CV uu noqon karaa mid ugu wanaagsan oo la qaato ها ان شاء الله waa gaarina hadda waxa ku jirna waxyaaba basic ah marka shaqo raadinaysid
intee shaqo laga raadiyaa inaa xirfadahaaga baratid skillska noocyada kala duwan ee u kala baxaan laakiin programku waa silsilad uu dheeryahay waxaa arki doonaa noocyada kala duwan ee cv-yada hadda waxaa laga yaabaa inaad taqaanid hal nooc oo resume eh resumeska noocyo kala duwan oo kala baxa tusaale waxaa jira mid lahay combination resume mixed ilaa 3 nooc aa jirto waxyaabahaas dhan waa arki doonaa qaabka loo qoro stepska loo qoro sida u diri lahayd sida online shaqo loogu baaro marka insha Allah kusii soconaynaa hadda networking ka mareynay sida shirkadaha loola xiriiro waxaas dhan soo aragnay marka aadan waa gaari doonaa insha Allah kama hor dhacayna insha Allah soo dhow Safiya يا codkaagu wuu hooseeyaa marka CV writing marka la qoraayo kaleeto accomplishment wax la dhahayaa ka dhaxay ay kamid yihiin macnaha goalska ala kuminto kaleeto waxyaalaha for example programmers wada dhahday waqtiga ku qabato kaleeto waxyaalaha wax kamid yihiin ma tusaale waxaa ku dhahay tight deadline tusaale ardayda kasoo qaad arday aad tahay tight deadline waa mid aha waxyaalaha kamid ah marka CV writing marka qoranayo muku darsan karaa goals muku noqon kartaa oo kale jaamacada students oo kale dhaka muuqda ها يعني accomplishment واي يعني دي محلها top class ka aan noqotay waa accomplishments waay waxay ka mid tahay guulaha agaartay waxaa kaloo oo ku dari kartaa accomplishment waxa noqon karo hadii college-ka ama jaamacadda inta dhiganaysay events programs hadii organize gareysay ay jiraan oo yani dad badan ay ka faa'iideysteen ama leadership roles hadii yani soo qabatay classkaaga ama jaamacadda waxbaas dhan ama bulshadaana nooshahay waxaa la dhahaa waa accomplishments marka waxyaabaha qofka laga fiiriyayna ka mid tahay marka la qaadanayo marka waa kasii gudbaynaa waxaan rajaynayaa dadka le inaysan su-aal qabin qaybtan waxaan ku arki doonaa marka sidee loo samaystaa work search plan hadda waxaa soo aragtay yani shirkadaha sida loola xiriiro network asxaabaa soo samaystay meelaha shaqada laga raadiyo waa taqaanaa oo internet shaqooyinka loo baaro waa taqaanaa hay-adaha website-yadoodii sida loo galo oo maxaa la dhahaa numberodoodii contentigoodii adresskooda meelaha laga raadiyo waa taqaanaa marka waxaa isku diyaarinaynaa marka hadda waxaa diyaar unahay inaan suuqii aa galno shaqa raadiskii aa galno marka in shaqa raadiska aa gashid waxaa ka horeysa inaa plan aa leedahay qorshe tusaale beri dambe waxaana qabanaa kana qabanaa inaa dhihi karid ay ku cad yihiin putin a work search plan yani inaa work search plankaaga oo ku noqdo mid qoran waxay kaa caawinaysaa in yani gooliska ama hadaf ku degsan aa la kulanto okay marka sida loo sameeyo waxyaabahaas dhan work search plan waa arki doonaa marka waxaan arki doonaa creating work search plan tusaale halkan waxaan ku arkaynaa examples ama tusaalooyin kala duwan dadaa weli wax noo soo qorqoraayo يعني مهم هين إنجليز كماش كقرن أو ذا آخرينه لكن سي نوح بدن أو كفر جرينو يعني سي وقت سيرج بلان وحواي إن دكستيد يعني وقتي يو تايم تابل كو قرن
aadna taqaanid yani shaqada aad qabanayso tusaale beri waxaa aadaa inaa la kulmo ninka HR-ka Premium Bank bas yani maanta inaad qabatid shaqadaas inaad dhahdid maanta kaliya waxaa baara internetka shaqooyinka ku jira maxaa la dhahaa online ku jira baara waana xareena wax kale ha qabanin yani waxyaabahaas waxaa la dhahaa in work search plan aad samaystid marka next slide waxaa ku arki doonaa sample camal hadda waa kana oo work search plan tusaale dateable inaad dhahdid attending waxaa attend gareynaa networking events ama yani event oo networking asxaab iyo dadka isku baranayaan soo kale inaad dhahdid February 19 search ads in the newspaper waxaa newspaperka waxaa ka baaraya kaliya shaqooyinka February 20 waxaa la xiriira master hebel oo bangigaas ka shaqeeya oo joogo yani February 20 inaad dhahdid waxaa shaqooyinka online lagu soo bandhigaa yani si apply gareena يعني qaab noocaas inaad qorshe u samaysid waa muhiim marka qaybtan waxaan ku arki doonaa introduction to resume writing and preparation marka shaqaraadis tahay waxaa laga filaa inaad haystid yani resume inaad leedahay sidoo kale inaad haystid application letter qaybtan waxaan ku arki doonaa marka resume preparation kii most of the employees yani expect you have a resume shirkadaha waxay ka raadinayaan inaad haysid maxaa la dhahaa resume ama CV ama application saa u taqaanid marka resume maxaa waa 1 or 2 page summary of your qualification waa hal page ama laba page oo soo koobayo qualification kaaga yani waxyaabaha aad soo baratay shaqooyinka aad soo qabatay wax skills ka aad leedahay marka sababta resume ka loo sameeyaa maxay tahay waa to quickly draw an employee's attention yani qofka ku shaqaaleysiinay in yani dareenkiisa attention aad ku samaysid markuu aqrinaa oo isdhaho oo la cajabo oo dhaho qofka raadinaysan waayo marka waxyaabaha attentionka qofka siinayna waxaa kamid ah most relevant skills shaqada markaas aad xareynaysid haddii aad leedahay maxaa la skillska la xiriiro sidoo kale an accomplishmentiga aad u muhiim u yahay waa idin sheegay waxyaabaha CV-gaaga laga fiirinayo waxaa waaye skillska aad leedahay iyo accomplishmentiga guulahaaga aad soo gaartay marka resume waxa waa is a tool designed to get you invited to an interview waa tool ka caawinayo in hadii si fiican aad qortid in interview-ga laga waco hadii laakiin aadan si yani maxaa la dhahaa wanaagsaneen aadan u qorin in yani lagu invite gareeyo ma noqon doonto shaqada ama interview-ga marka halkaan aan ku arki doonaa qaababka loo sameeyo waxyaabaha aad ku qoraysid marka qaybtan sectionkan waxaa ku arki doonaa waxyaabaha resume markaa qoraysid ama CV-ga aad diyaarinaysid waxyaabaha aad ku qoraysid information to board your resume xogta aad ku qoraysid CV-gaaga yani tips on writing resume hababka kala duwan ee loo qoro creating a resume master plan balkan aad u muhiim yahay waa arki doonaa different types of resume marka waxaa kaloo arki doonaa noocyada kala duwan ee resume-ka the information that you put on your resume will depend on your background and experience mar walbo waxa CV-gaaga aad ku qoraysid waxay ku xiran tahay yani background-kaaga waxa aad hore usoo baratay experience-ga aad leedahay iyo shaqada markaas aad xareynaysid mar walba oo shaqo ama ala CV qoraysid ama resume aad qoraysid xogta lagu qoraayo waxay ku xiran tahay background-kaaga background waxaa ula jeedaa yani waxaa ka wada maxaa la dhahaa waxbarashadaadii hore experience-ga aad leedahay iyo shaqada nooc aad xareynaysid ugu horeyn marka aad resume ku qoraysid waxyaabaa ugu horeeya ee lagu qora waxaa waaye name and contact information yani waa haddii CV aragteen waxyaabaa kugu horeeya waxaa waaye yani magacaaga iyo meesha lagaa helayo informationka adig kugu saabsan tusaale waxaa kamid ah mailing address email addresskaaga numberkaaga sometimes waxaa ku dari kartaa haddii website aad leedahay okay lambar laba waxaa waaye objectives tusaale CV hadda aan fiirino tusaale hadda waxaa fiirinaynaa sample CV si yani adinkan ufahantiin qaab resume anaga waxaa ka dadban waa resume-ka iyo CV-ga farqiga udhexeeya waxaa waaye CV-ga waa balaaran yahay oo yani waxyaaba badan oo soo kooba lakin resume-ka waa specific 1 or 2 page waaye marka halkaana ku arkeyna asna intuu noogu soo kaca insha allah
xoogaa hala dulqaato documentiyo badanaa ku jiro intaa buugga ka helay okay buug waa kana marka waxyaabaha ka hadlayna waxay ahayd qaybta resume-ka iyo qaabka loo qoro marka sample caadi real ah idin tusaa insha allah qof walba habeentan waxaa ka rabnaa inuu noo soo diyaariyo resume-kiisa asoo gacantiisa kusoo diyaarsanaya waxaa ka hadalnay ugu horeyn name and contact information marka waxaan arki doonaa wixii ayagoo real life ah okay number one waxaa kasoo hadalnay in lagaa rabo content personal information waxaa ka hadalnay number one maxaa ka tag adi number one name and contact information name and contact information waxaa la dhahaa tusaale waddadaa degan tahay city and province magaaladaad joogtid phone numberkaaga addresskaaga waxyaaba noocaas sidoo kale waxaa ka hadalnay codka ay go-go-aayo objectiveska objective maxaa la dhahaa marka objective waxaa la dhahaa is a statement briefly states that the type of work you want waxaa la dhahaa waa yani statement yar ama oraah yar oo caddeynayso si briefly ah nooca shaqada aad rabtid don't include a job objective statement if your goal is obvious or can be stated in cover letter haddii yani cover letterka markaad diyaarinaysa job objectiveskaaga aa ku qortay ha ku qorin maxaa la dhahaa resume-ka okay marka waa kana ugu horeyn waxaa qoraysaa personal information-kaaga then waxaa qoraysaa objectiveska kadib maxaa noogu xigo education and training yani waxbarashadaadii haddii schoolska kasoo baxday jaamacadaha kasoo baxday noocaas kuwaan sida loo qoraa tusaale hadda waxa kuugu dambeeya fast laga dhigaa tusaale hadda waxaa kasoo qalin jibisa master degree ama phd fast ku masterka ku xajinaya then qaabkaas aa wadaya marka educationka aa qoraysid ha ka bilaabin maxaa la dhahaa last inaa secondarygaagii ha kasoo bilaabin ama primary schoolkaagii ama kindergartenkaaga kasoo bilaabin waxaa kasoo bilawdaa hadda maxaa taagan tahay hadda maxaa ka qalin jibisay qaab noocaas aa qore educationka sidoo kale waxaa jiro work history or experience haddii aad leedahay khibrad shaqo haddii hore meel aad kaga soo shaqaysay experience aad leedahay khibrad shaqo waxay noqon kartaa laba nooc mid yani volunteer ah ama mid yani oo paid ah oo lacag aa ku qaadan jirta iyo mid free ah marka labadaas noocba waxaa lagaa rabaa inaa halkaas aa ku qortid qaabka aa qoraysidna shaqada waxaa waaye yani nooca hadda u dambeeyay in aa kasoo bilawdid sidoo kale waxyaabaha u baahan tahay inaad ku qortid resume-ka markaad diyaarinayso waxa waaye languageska luqadaha aad taqaanid how many languages aa ku hadashaa waxyaabahaasna waxaa ku qoraysaa resume-kaaga waxaa kaloo jira award and honors haddii ay jiraan awards recognition ama aqoonsiya caalami haddaa heshay ama iskuulkaaga haddii guula ama aqoonsiya aa ka heshay shahaado sharaf haddii lagu siiya ayadan waa qoraysaa school projects waxaa waa jaamacadda projectiga ka qalin jibisay waxyaabo kale aa samaysay waxaas dhan ayagana waa ku qoraysaa marka qaybta kale resume tips waaye halkaana fiirinaysaa resume-ka markaa qoraysid ugu horeyn personal information-kaaga qoraysaa then career objectives-kaaga shaqada aa rabtid nooca ay tahay then experience-ga qaabkee u qoraysaa work title aa qoraysaa employer name shirkada kasoo shaqaysay ama qofka usoo shaqaysay magaaladii ku yaaleen dateka shaqada bilowday yani qaab noocaas master saasa u qoraysaa marka work markaa kasoo baxda educationka qoraysaa kabacdi waxaa qoraysaa adreska yani languageska aad taqaanid awardska honorski hobbiski waxaan rajeynaya inaa fahanteen resume writing any questions yaa su-aal qabo dhanka qorista sifiyada waa su-aalaha xaggiina markaan qofkii su-aal qabo insha allah gacanta taago waxaa gacanta taagtay zakaria
استاذ waxaan u baahnaa lahaa kaliya anu waan fahmay ma sha Allah waana kaga mahadcelinayaa laakiin waxaan u baahnaa lahaa soo PDF ah ina waxaan noo soo dirto saasan jeclaan lahaa waa mahadsantahay zakariya yaa kale su-aal qabo nadia nur another time يا أنا واي هذا كله سوقات رسمي CV على إن أنقر وح achievement كذي هاي وحاول قال كلها قال وحكمن ده إن هاي سكول لما يكمبيوتر أدمية iyo shahaadada inimo macalimo tababar ahaa laakiin macalin ma noqon qof macalin uma noqon laakiin tababarnimadii ahaaya awaad nabiyada ma qaadan language xoogaa ahaaya dadka sidee ugu tacbiirin karaa meesha shaqa nabiyada ma bilaabinba thank you okay marka mar walba waxaa la akhriyaa yani job description-ka iyo maxaa la dhahaa shaqadan qofka experience noocay u baahan tahay shaqo walba marka lasoo bandhigo tusaale mar kale inaa screen-ka share gareena tusaale hadda haddii aan raadino shaqooyinka hay-adaha UN-ka camal ama hadda kanaaba taagannahay okay shaqadan camal project assistant okay marka waxyaabaha aad ka fiirinaysa shaqada waxaa waaye skill and qualifications loo baahan yahay saani usoo qorayaan waxay ku dhahaan bachelor degree at least 1 year relevant work experience waxyaabahan dhan inaad soo aqrisid markaad soo aqrisid waxaa ogaanaysaa shaqo walbo yani waxaa idin dhahday markaad CV ama resume aad qoraysid waxay ku xiran tahay resume-kaaga inta uu la ekaanayo waa background-kaaga iyo maxaa la dhahaa experience-ga aad leedahay marka mar walbo waxaa la akhriyaa shaqada markaas aad apply gareynaysid qof noocee u baahan tahay qof caynkee u baahan tahay skill noocee u baahan tahay markaa intaa fahantid yani waxaa ku fududaanayo in aad apply gareysid oo aad yani skillka ay u baahan tahay aad u raadisid then aad u dirtid CV qurux badan naadi waxaan rajeynaa inaad fahantay yaa kaloo su-aal qabo insha allah caawa halkaan ku gabayn doonaa waxyaabaha kale pointska kale muhiimka ah sida shaqooyinka online-ka looga xareeyo cover letterka sida loo qoro waxyaabahaas marka la arki doonaa sababtoo ah waxaa noo dhacayo waqtigii haysana 40 daqiiqo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wixii su-aalaha iyo maxaa la dhahaa qofkii rabo inuu tala iyo waxyaaba kale dheer soo gudbiyo fadlan groupka kusoo dir waadna mahadsantihiin